Filinku wuxuu ku bilaabanayaa gabadhan danyarta ah ayaa shaqada laga ceyriyey, laakiin intii ay agabkeeda urursanaysay si ay shirkadda uga tagto ayay si kedis ah u heshay wicitaan telefoon. Shirkaddii hantida maguurtada ahayd ee guryaha ayaa ku wargelisay in saaxiibkeed uu iibiyey gurigii ay u diyaarsadeen aqalkooda cusub ee guurka, kadibna uu baxsaday. Way rumaysan weyday arrintan. Waxa ay qaadatay telefoonkii wayna wacday. Laakiin mar kasta oo ay wacdo, jawaabta keliya ee ay helaysay waxay ahayd in telefoonku uu xiran yahay. Daqiiqadaas ayaa ka dhigtay inay ogaato in saaxiibkeeda uu khiyaanay. Muuqaalka like noo saar. Taasina waxay ahayd tii keentay inay weydo kalsoonida ay ku qabto ragga, tartiibna ay u weydo rabitaankii ahaa inay guursato. Naxdintaas dareen kadib, Hana waxay goosatay inay nafteeda siiso waxa ugu wanaagsan. Waxay go'aansatay inay codsato shaqo dawlo, sababtoo ah waxay u haysatay in shaqo cusub oo aan shaqo ku lahayn arrimaha guurdoonka ay ka caawin doonto inay ilowdo waayihii hore ee xanuunka badnaa. Hana waxay qorshaysay inay sanad kasta lacag yar kaydsato. Sidaas darteed, marka ay shaqada ka fariisato oo ay howlgab noqoto, waxay heli lahayd lacag ku filan oo ay ku rumayso riyadeeda ah inay u safarto xeebaha. Si kastaba ha ahaatee, xaqiiqadu ma noqon sida ay rabtay. Maalin kasta Hana aad ayay u shaqaysaa, laakiin mushaharka shaqaalaha dawladdu waa mid aad u yar. Intaas oo keliya ma aha, mararka qaarkood shaqaalaha dawladda waxa uu carooda dadweynaha. Dhanka kale, madaxeedii sare ayaa ku mashquulsanaa dhexgalka baraha bulshada, wuxuuna si kedis ah u arkay war naxdin leh. Duq magaalo kale ayaa ka faa'iidaystay xaaladda doobnimada ah ee dhalinyarada maanta si uu u bilaabo olole isku guurin ah. Warkaas waxaa la soo dhigay waqti aan fogeyn, wuxuuna si dhaqso ah u helay jacayl iyo taageero uga timid dadweynaha. Duqii magaalada ayaa arkay wararkaas, wuxuuna dareemay xaasidnimo aad u weyn. Sidaa darteed, duqa magaalada wuxuu isna rabaa inuu sameeyo urur taageera guurka dhalinyarada. Wuxuu rajaynayaa in ololahani uu ka caawin doono inuu mar kale caan noqdo, isla markaana dib loo doorto. Qorshahaas oo hadda keliya maskaxdiisa ku soo dhacay ayay ahayd markii uu duqa magaalada si degdeg ah u amray shaqaalihiisa inay fuliyaan. Waxyar kadib, ogeysiisyada ku saabsan ololahan ayaa lagu dejiyaa dhismihii ay Hana ka shaqaynaysay oo dhan. Waqtigan, Hana waxaa hadda uun baaldi biyo wasakh ah ku shubtay mid ka mid ah dadka deegaanka. Sidaas darteed, ogeysiiskan duqa magaalada kama soo bixin horteeda oo ma aysan arkin. Xafiiska Hana, qof kasta wuxuu tijaabinayay inuu nadiifiyo biyaha wasakhda ah ee ka haray wixii dhacay goor sii horeysay. Si kastaba ha ahaatee, ka hore intaanay dhibaatadani dhammaan, dhibaato cusub ayaa soo gashay noloshii Hana. Hogaamiyihii kooxda ayaa arkay in Hana ay weli ku soo laabanayso shaqada, sidaas darteed wuxuu lumiyey dulqaadkii wuxuuna u yeeray iyada. Arrintaas darteed, wuxuu ogaaday inay si gaar ah telefoonkeeda ugu dhex bixisay calaamad dhawaaq isaga u gaar ah oo ah codka eega. Daqiiqad ka mid ah xishood iyo ceeb baahsan, Hana waxay fiirisay isaga waxayna ku qasbanayd nafteeda inay u dhoolacadayso. Isagu wuxuu isu haystay qof deeqsi ah oo dulqaad leh, sidaas darteed wuxuu ku yidhi inay u sheegto murugadeeda oo dhan. Markii ay fasax ka heshay hogaamiyaha kooxda, Hana ma sii labalabayn mar kale. Iyadoo taagan xafiiska dhexdiisa, waxay si dabiici ah, iyadoo aan waxba qarinaynin ugu eedaysay hogaamiyihii kooxdeeda wax kasta oo uu sameeyey. Mar kasta oo ay Hana hadasho, aad ayuu u sii yaabayay hogaamiyaha. Dhoolacadayntii ku jirtay faruuryaha ninkan bidaarta leh ayaa tartiib u burburtay. Markii ay Hana ogaatay waxay ku hadashay, waxay ahayd goor ay xeero iyo fandhaal kala dhaceen. Sidaas darteed, waxay awoodi weyday wax kale oo aan ka ahayn inay si xishood iyo qosol daciif ah u dhoolacadayso. Si uu uga abaalmariyo runsheegnimadii Hana, hogaamiyihii kooxda wuxuu go'aansaday inuu u beddelo xafiis cusub. Xafiiskaas wuxuu ahaa xafiiskii isku guurinta ee uu duqa magaalada aasaasay saakay aroortii. Hana waxa ay dareentay dareen xun markii ay cagaha dhigtay xafiiskaas cusub. Waxa uu noqday dhab ahaan sidii ay dareemaysay. Qaar ka mid ah saaxiibadeeda cusub ee ay wada shaqaynayeen waxa ay sugayeen inay howlgab noqdaan. Qaar kalena waxay sugayeen fasaxa dhalmada. Waxaa kale oo joogay mid weli sugaya imtixaanka shaqaalaha dawladda si uu u awoodo inuu u shaqeeyo waqti buuxa. Markii ay Hana hareeraheeda fiirisay, waxay ogaatay inayna marnaba isku halayn karin saaxiibadeeda shaqada. Waxaa sidaas dib ugu soo laabtay waayihii hore ee xanuunka badnaa ee 3 sano ka hor. Shirkaddii isku guurinta ee ay Hana u shaqaynaysay waqtigaas waxa ay lahayd xeer dhigaya in shaqaaluhu aysan sheegi karin sirihii macaamiisha. Sababtoo ah macaamiishu waxay ahaayeen kuwa lacagta siiya shirkadda, shaqaalahana looma ogolayn inay runta sheegaan dhib kasta oo jira. Haweeney ay Hana isbarbar dhigtay oo ay guurkeeda fududaysay ayaa guursatay, laakiin kadib ninkeedii ayaa u garaacay si daran, taas oo keentay in isbitaal la dhigo. Kadibna Hana lafteeda waxaa khiyaanay saaxiibkeedii hore. Haddaba mar kasta oo ay Hana dib u xasuusato waxyaabahaas, waxay weli dareemaysaa cabsi. Markay jirtay 20 sano, Hana waxay dooratay inay ku noolaato nolol doobnimo ah, waxayna diiday inay guursato. Dhacdo kale oo dhinac socotay, duqa magaalada ayaa cunayay baasto isagoo daawanaya telefishanka si uu ogaado wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan ololaha soo socda. Daqiiqadaas, telefishanka ayaa soo qabtay war ku saabsan nin dhalinyaro ah oo ku nool jasiirad yar. Junho wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo weli doob ah, laakiin aan rajaba ka qabin inuu helo qof uu barto oo uu jeclaado. Wax kasta oo ay dadku ka ogaayeen isaga waxay ahaayeen oo keliya inuu doob noqon doono ilaa uu ka duqoobo. Fikir weyn oo dhiiran ayaa si kedis ah ugu soo dhacay maskaxda duqa magaalada. Wuxuu ku fekeray in dadku ay aad ula dhigi doonaan ama ay u qadarin doonaan haddii wakaaladiisu ay ka caawin karto Junho inuu helo xaas. Sidaas darteed, duqa magaalada wuxuu durbadiiba aaday inuu u sharxo Junho inuu noqdo musharaxa bandhiga shukaansiga iyo lamaanaysinta. Ninkan ayaa hadda ah qof si weyn ugu caan baxaya sida mawjadaha kale ee baraha bulshada. Sidaa darteed, haddii ay ku guuldaraystaan inay lamaane u helaan, khasaaraha uu xafiisku xamili doono wuxuu noqon doonaa mid aad u weyn. Si fudud haddii
loo dhigo Hana iyo saaxiibadeeda shaqadu ma awoodaan inay ku guuldaraystaan arrintan. Waxaa intaas dheer Hana waa qofka keliya ee xafiiskan ku sugan ee khibrad u leh arrimaha isku guurinta iyo lamaanaysiinta. Sidaas darteed duqa magaalada wuxuu go'aansaday inuu Hana u magacaabo hogaamiyaha kooxda. Haddii qorshaha lamaanaysiinta uu guulaysto, kooxda oo dhan waxay heli doonaan abaalmarin lacageed oo aad u soo jiidasho badan. Markasta oo la soo hadal qaado arrinta guurdoonka iyo lamaanaysiinta, Hana waxay muujisaa nacayb iyo karaahiyo aad u weyn. Laakiin lacagta abaalmarinta ah ayaa ka dhigaysa inay awoodi weydo inay is-celiso, waxayna u dhoolacadaysaa si ay rajo badani ku jirto. Intaas oo keliya ma aha, duqa magaalada wuxuu kale oo uu u ballanqaaday ballanqaad aad u weyn. Haddii Hana ay u heli karto xaas Junho, waxaa loo bedeli doonaa wax kale oo ka wanaagsan. Kadib markii ay maqashay arrintan, Hana waxay noqotay mid ka sii go'aan qaadasho dhiiran si ay u dhammaystirto ololahan sida ugu dhaqsaha badan. Fiidnimadii isla maalintaas waxay dhex gashay dhammaan baraha bulshada si ay u ogaato xog kasta oo ku saabsan Junho. Sida ku xusnaa wixii ay baratay, wuxuu ahaa qof aad caan uga ah internetka. Kaliya laguma jeclayn baraha bulshada, laakiin waxaa kale oo aad u jeclaa dad degan jasiiradda noloshooda maalinlaha ah, sababtoo ah wuxuu badanaa caawin jiray dadka ku xeeran. Maalintii xigtay, Hana waxaa loo diray jasiiraddii si ay ula kulanto Junho. Si kastaba ha ahaatee, markii ugu horeysay kulmeen aad ayay u naxday, hadalna waa laga waayay. Waxay aragtay nin muruqyo waaweyn oo jirkiisa oo dhan ay nabarro ku yaalaan. Wuxuu u soo socday dhankeeda isagoo gacanta ku haysta faas uu ruxaayo. Sawirkaas wuxuu Hana durbadiiba ka dhigay inay ku fikirto inay yihiin burcad. Sidaas darteed waxay bilowday inay durbadiiba cararto. Way carartay, wayna carartay, kadibna waxay ogaatay inay luntay. Waqtigan Hana weli wax fikrad ah uma lahayn in ninka ay hadda la kulantay uu ahaa macaamilkeeda mustaqbalka ee ay raadinayso. Nasiib wanaag, waxay la kulantay gudoomiyaha tuulada. Ugu dambayntiina waxay aqoonsatay inuu ninkaasi ahaa Junho. Muddo yar oo ay wada sheekaysteen kadib, Hana waxay si kedis ah u ogaatay in Junho uusan wax dan ah ka lahayn inuu guursado. Waxaana u cadaatay in bandhiga telefishanka uu rabo oo keliya inuu soo jiito dadweyne iyo isdhexgal. Sidaas darteedna ay si ula kac ah u weecinayeen rayiga dadweynaha. Inkasta oo uu Junho u sii waday diidmada, Hana weli ma aysan rabin inay si fudud uga quusato. Sababtoo ah wuxuu ahaa rajada keliya ee ka caawin karta inay ka badbaado nolosha adag ee ay hadda ku jirto. Sidaas darteed waxay ka codsatay inuu u ogolaado inay hal habeen la joogto. Habeenkaas, maadaama uusan Junho aqoonin waxa ay dadka magaalada ah ee sida Hana oo kale ay u diidan yihiin inay cunaan, wuxuu kariyey miis ay ka buuxaan cuntooyin kala duwan. Kadib markii ay hal mar dhadhamisay, Hana waxaa la yaab ku noqotay awoodda cunto karis ee heerka sare ah ee Junho. Si kastaba ha ahaatee, muuqaalka Hana ee xilliga cuntada wuxuu shaki geliyey labadii wiil ee uu adeerka u ahaa Junho. Waxay qiyaaseen in Hana ay tahay gabadhii musharaxa guurka ahayd ee uu adeerkeeda ka sheegay telefishanka. Kadib markii ay cuneen oo ay cabeen, labadoodii waxay u baxeen banaanka si ay u soo wada hadlaan. Hana waxay u sheegtay Junho sheekada ku saabsan khiyaanadii saaxiibkeedii hore. Waxay weyday kalsoonidii ay ku qabtay ragga, mana aysan rabin inay mar kale guursato. Laakiin Junho wuu ka duwanaa. Wuxuu ahaa nin aad u naxariis badan. Dhibaatadiisa keliya waxay ahayd timihiisa oo isku duubnaa, muuqaalkiisuna ma ahayn mid aad u qurux badan. Hana waxay kadib sii ururisay inay ku martiqaado Junho inuu ka qayb qaato bandhiga shukaansiga iyo lamaanaysiinta. Si kastaba ha ahaatee, isagu weli si adag ayuu u diiday martiqaadkii. Maadaama ay weyday doorasho kale, waxay u reebtay foomkii codsiga si uu dib u fiiriyo, waxayna urursatay dharkeedii si ay u isu diyaariso inay baxdo. Kadib dhammaan arrinta koowaad ee muhiimka u ahayd Junho waxay weli ahayd labadiisa carruur ee uu awowga u yahay iyo dadka tuulada. Laakiin si kastaba ha ahaatee, Junho wuu bedelay fikirkiisii wuxuuna buuxiyey foomkii codsiga lamaanaysiinta ee ay Hana u reebtay. Sidoo kale, duqa magaalada wuxuu isna helay codsi aad u la yaab badan. Musharax cusub oo dhowaan soo wareegay ayaa codsaday inuu ka shaqeeyo waaxda Hana, iyadoo waaxdaas uu ahaa mid aysan cidna rabin inay ka shaqayso. Qofkaas wuxuu ahaa saaxiibkii hore ee Hana. Hana waxay hadda uun ka soo baxday xafiiska markii ay aragtay Jiwoon. Soo muuqashada kediska ah ee saaxiibkeedii hore kama aysan dhigin inay dareento wax farxad ah haba yaraatee. Sidaas darteed waxaa ku dhacday dharbaaxo xoogan. Kadibna Hana waxay u jeesatay inay qabato gacanta Junho, waxayna ku dhawaaqday inay dhowaan noqon doonto xaas qof kale uu leeyahay. Markii uu Jiwoon maqalay Hana oo leh arrintaas, wuxuu awoodi waayey wax kale oo aan ahayn inuu macsalaameeyo iyada. Kadibna wuu u jeestay wuxuuna bilaabay inuu iska baxo. Waqtigan Junho wuxuu dhab ahaan u haystay inay Hana rabto inay guursato isaga. Sidaas darteed wuxuu si farxad leh uga codsaday in la qabto taariikhda arooska, isaguna wuxuu durbadiiba ku laaban lahaa jasiiradda si uu u ogeysiiyo dadka tuulada. Markii ay Hana tagtay xafiiska, waxay ogaatay in Jiwoon uu yahay saaxiibkeeda cusub ee shaqada. Sidaas darteed, xaqiiqada ah in Junho uu dhab ahaan ahaa macmiil ayaa iyadana banaanka u soo baxday. Habeenkaas, Hana waxay ogaatay inay teleefonkeeda ku ilowday xafiiska dhexdiisa, waxayna durbadiiba u laabatay inay soo qaado. Si kastaba ha ahaatee, waxay la kulantay Jiwoonkii xumaa. Wuxuu isku dayay inuu dib u soo celiyo iyada, laakiin iyadu ma aysan lahayn wax dareen ah mar kale. Sidaas darteed waxay iska riixday gacantiisa weyna ka tagtay. Maalintii xigtay, Junho wuxuu bilaabay inuu agabkiisa urursado si uu isu diyaariyo u guurista magaalada. Intii ay Hana nadiifinaysay qolkii ay shirkaddu u diyaarisay Junho inuu si ku meel gaar ah u dego, Jiwoon ayaa si kedis ah u soo muuqday si uu u caawiyo. Hana waxay ku tiri iyadoo caraysan haddii uu Jiwoon rabo inuu qabto shaqadan, inuu isagu keligiisa qabsado. Waxay go'aansatay inay isaga uga tagto qolka, iyaduna ay baxdo. Junho iyo labadiisii wiil ee uu adeerka u ahaa ayaa soo laabtay. Hana waxay kale oo ay joogtay halkaas si ay u
soo dhaweyso saddexdooda. Labadiisa wiil ee uu adeerka u ahaa waxay ahaayeen kuwa aad u faraxsan inay joogaan qolkooda cusub. Qof kasta wuxuu wax u cunay uuna u sheekaystay si farxad leh, iyagoo u qaatay xafladan mid lagu dabaaldegayo guriga cusub. Kadib cuntada, Junho wuxuu Hana u hooyiyey gurigeeda. Waqtigan waxay labadoodu la kulmeen Jiwoon. Markii uu arkay arrintan, Junho wuxuu durbadiiba isku bedelay qaabkii oday difaacaya xaaskiisa. Wuxuu damcay inuu si fiican u jilo si uu Jiwoon u dareemo jilicsanaan kadibna uu meesha uga tago. Laakiin Junho wax fikrad ah kama uusan haysan in Jiwoon uu ahaa hogaamiyaha cusub ee kooxda. Junho wuxuu garan waayey wax uu sameeyo si uu iskaga yareeyo xishoodka iyo ceebta, sidaas darteed wuxuu u foorarsaday si uu u salaamo uuna u ruxo gacanta Jiwoon. Kadib isaga iyo Hana si degdeg ah ayay meesha uga tageen. Markaas kadib qof kasta wuxuu bilaabay inuu doorto gabdhaha musharaxiinta ah ee u dhow inuu guursado Junho. Waxay ahayd inay doortaan musharaxa ugu wanaagsan ee suurtogalka ah. Si kastaba ha ahaatee, gabdhaha musharaxiinta ah ee halkan joogay waxay ahaayeen kuwa gaar ah. Qaar waxay ahaayeen haween maalqabeen ah oo raadinaya rag dhalinyaro ah. Qaarkoodna waxay dalbanayeen in saaxiibadooda ragga ah ay ka bixiyaan lacagta wax kasta oo ay u baahan yihiin. Kadib Hana waxay u timid Junho waxayna siisay foom su'aalo ah si uu uga caawiyo inuu helo musharax ku habboon. Waxay ahayd wax la yaab leh inuu rabo inuu guursado, laakiin uu doortay qof jecel inuu wax kasta keligiisa uu qabsado. Lama oga inuu dhab ahaan u ogolaaday noocaas iyo in kale, ama inuu si naxariis leh u calaamadeeyey sanduuqyada qeexayay dabeecadda Hana lafteeda. Sidoo kale, gabadha ay Hana wada shaqaynayeen ayaa waraysanaysay gabadhii ugu horreysay ee musharaxa u ahayd Junho. Gabadhan waxay ahayd qof caan ah oo YouTuber ah sida Cadnaan oo kale, sidaas darteed gabadha ay Hana wada shaqaynayeen waxay durbadiiba dareentay inay wax khaldan yihiin. Waxay qiyaastay in gabadhan ay rabto oo keliya inay la shukaansato Junho si ay u hesho isdhexgal iyo daawasho badan oo ugu soo kordha kanaalkeeda. Kadib markii ay meesha ka saareen ku dhowaad dhammaan musharaxiintii, hadda waxa u soo haray hal musharax oo keliya oo la yiraahdo Minji. Haddaba waxay keliya rajayn karayeen in Junho iyo Minji ay isku waafaqaan. Si kedis ah, gabadhii ay Hana wada shaqaynayeen ayaa bilowday inay ku faanto ninkeedii. Tani waxay Hana dib u soo xasuusisay waqtigii 3 sano ka hor markii ay iyada iyo saaxiibkeedii hore weli wada joogeen. Jiwoon wuxuu had iyo jeer cunto u karin jiray Hana markasta oo ay shaqada ka soo laabato. Telefoon ka soo dhacay Junho ayaa Hana dib ugu soo celiyey xaqiiqada dhabta ah, sababtoo ah maalinta xigta waxay ahayd taariikhda rasmiga ah ee balanta. Junho wuxuu rajaynayay in Hana ay waqti u hurto si ay u taageerto beri. Hana iyaduna si farxad leh ayay u ogolaatay codsigii Junho. Sidaas darteed waxaa bilowday ballantoodii rasmiga ahayd. Qaabka labiska ee Junho wuxuu ahaa mid aad u xun oo ka yaabiyey dadka kale. Tani waxay Hana ku riday inay bilowdo inay ka walwasho qorshaha Junho uu ku raadinayo xaas. Kadib muddo ay dooranayeen dhar, ugu dambeyntii waxay u heleen dhar aad u lagu qanco. Ka hore intaysan tegin, Hana waxay u sheegtay Junho waxyaabo dhowr ah oo ay tahay inuu maskaxda ku hayo. Kadib labadoodii waxay wada qaateen waqti aad u madadaalo iyo farxad badan. Jiwoon wuxuu taagnaa meel fog wuxuuna daawanayay wax kasta oo dhacayay. Waqtigan wuxuu awoodi waayey wax kale oo aan ahayn inay ka soo baxdo neef weyn. Jiwoon walaashiisa ka yar iyadana waxaa ku qasbaya aabaheed inay hesho qof ay guursato. Sidaas darteed waxay ka codsanaysay Jiwoon inuu caawiyo. Waxaa soo baxday in isagu uu xiriiro badan ula lahaa dad awood leh, isla markaana uu lahaa hanti iyo dhaqaale fiican. Jiwoon wuxuu kirayay dhammaan maqaayadii wuxuuna keenay dad iska dhigaya shaqaale iyo jilayaal dheeri ah. Jiina waxa ay dibadda ku sugaysaa nalka gaduudan ee wadooyinka markii uu si kedis ah shaqaale halkaas ka ag dhowaa uu si kama ah wax uga tuuray. Nasiib wanaag, Junho oo timihiisa la toosiyey ayaa soo muuqday waqtigii saxda ahaa. Wuxuu galay booskeeda si uu u qabto koofiyadii soo dhacaysay. Si kastaba ha ahaatee, keliya koofiyadda ma ahayn waxa soo dhacayay ee xataa biyona waa ay la socdeen. Waqtigan dhab ahaan ma jirin wax la badbaadin karo. Dharkii loo diyaariyey ballanta shukaansiga iyagiina way qoyeen. Jiina waxay weydiisay iyadoo walwalsan in ninkii badbaadiyey uu fiican yahay iyo in kale. Laakiin Junho wuxuu aad uga walwalsanaa xariiqda ku taalay gacanta Jiina. Kadib wuxuu u keenay xoogaa agab degdeg ah. Wuxuuna u dhaqaaqay si degdeg ah. Haddaba wuxuu ku qasbanaa inuu si dhaqso ah u soo qubaysto. Haddii kale wuxuu kadib dhici lahaa ballanta maanta. Kooxdii waxay arkeen inuu lumiyey dharkiisii quruxda badnaa. Waxaa intaas dheer timihiisii isku duubnaa ayaa dib u soo laabtay. Qof kasta wuxuu bilaabay inuu ka shakiyo in ballantani ay guulaysan karto iyo in kale. Laakiin si kastaba ha ahaatee, waqtigii ballanta waa uu lahaa. Sidaas darteed waxay ku qasbanaadeen inay si dhaqso ah u bilaabaan. Muddo kadib, labadoodii ugu dambeyntii waxay heleen mowduuc ay ka wada hadlaan. Ugu dambeyntiina waxay go'aansadeen inay gacanta isku salaamaan oo ay saaxiibo noqdaan. Habeenkaas Hana waxay ku martiqaaday Junho maqaayadii ay inta badan tegi jirtay si ay u wada hadlaan. Waxaa soo baxday in Minji ay ogaatay in Junho uu yahay nin naxariis badan oo tixgelin leh. Si kastaba ha ahaatee, labadoodu waxay lahaayeen fakar xoogaa kala duwan. Minji waxay rabtay in cuntada qoysku ay noqoto mid dhex marta labadooda oo keliya iyadoo wada jooga. Dhanka kale, Junho wuxuu aaminsanaa in cuntada qoyska ay tahay wax uu la wadaagi karo qof kasta. Si kooban haddii loo dhigo, arrinta cuntada darteed, labadoodu ma aysan awoodin inay mowqifka isku mid ka noqdaan. Sidoo kale, Jiina waxay ku martiqaadaysay walaalkeeda maqaayad si ay u cunaan hilib digaag oo ay waqti u qaataan. Waxaa soo baxday in gabadhii ay Hana u haysatay inay tahay qofta la jecel yahay ee saaxiibkeed muddo 3 sano ah ay dhab ahaan ahayd walaashiisa ka yar. Jiwoon wuxuu kale oo uu kula taliyey Jiina inay nin guursado ay ka raadsato. Jiwoon wuxuu isna isagoo xanaaqsan ku yiri Jiina inay qof ka raadsato jidka dhexdiisa. Tani waxay keentay in sawirka Junho uu si kedis ah ugu soo dhaco maskaxda Jiina. Maalintii xigtay, Junho
iyo labadiisii wiil ee uu adeerka u ahaa ayaa ku socday jidka markii ay si kedis ah u arkeen gaariga carruurta oo jidka dhexdiisa ku baakimaan. Isagoo dabeecaddiisa naxariista leh ka duulaya, wuxuu qaaday tilaabo uu ku caawinayo carruurta si ay macalinka ula lugeeyaan dugsiga. Muuqaalkan quruxda badan wuxuu durbadiiba soo jiitay indhaha dadkii jidka marayay. Jiinana waxay ahayd mid ka mid ah dadkaas. Sawirkii Junho ee subaxdaas laga qaaday ayaa si dhaqso ah uga soo muuqday wararka. Markaas ayay Jiina ogaatay in ninkaasi uu ahaa kii caawiyey iyada, sidaas darteed durbadiiba waxay u dhoolacadaysay si farxad leh. Dhanka kale, kooxdii taageerada ee xafiiska waxay ka walwalsanayeen khatar kale oo soo fool leh. Waxay dareemeen in haddii Junho uu sii caan baxo, inay soo bixi doonaan dhinacyo kale oo isku dayi doona inay soo jiitaan oo ay xadaan. Iyadoo aan wax badan ka fekerin, Hana waxay ku degdegtay guriga Junho si ay ula hadasho. Nasiib wanaag, isagu si buuxda ayuu u aaminay iyada. Sidaas darteed ma uusan lahayn wax niyad ah oo uu dhinacyo kale uga codsado inay guur u raadiyaan. Daqiiqadaas dhexdeeda, gambaleelka albaabka ayaa mar kale dhawaaqay. Qofka albaabka taagnaana wuxuu noqday Jiina. Markii ay aragtay qoftii ay u haysatay inay guursatay saaxiibkeedii hore, Hana durbadiiba way naxday, wayna garan weyday wax ay ku tiraahdo. Laakiin taasi ma ahayn waxa ugu xumaa, sababtoo ah Jiwoon ayaa isla durbadiiba ka dambeeyey oo soo galay. Hana marnaba uma haysan inay muuqaalkan oo kale ah dib u arki doonto mar kale, iyadoo ay ku qaadatay in ka badan 2 sano inay isku daydo inay tirtirto dhammaan xusuusteeda ku saabsan arrintaas. Waxaa soo baxday in Jiina ay u timid halkaas si ay ugu mahadceliso Junho. Jiwoon wuxuu markaas ku yiri Jiina inay si dhaqso ah meesha uga tagto. Hana uma aysan harin wax kale oo ay tiraahdo, sidaas darteed waxay go'aansatay inay dibadda u baxdo. Hana waxay aragtay Jiina oo bannaanka ku sugaysa iyada. Wada sheekaysigii dhex marayna wuxuu ku dhacay jawi aad u kacsan oo diiran. Hana waxay sheegtay inayna hadda kadib waxba ka gelin sababta ay wax u dhex mareen labadooda haba yaraatee. Muuqaalka like saar haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka, subscribe dheh, gambaleelka furo si aad u hesho muuqaaladayda xiga. Mahadsanid.